Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daawadayaal kulanti wanaagsan ku soo dhawaada wararka telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee kaga imaanaya xarunta dhexe TV-ga qaranka oo ku leeyahay magaalada Muqdisho. Hadduu alla idmo daawadayaal qodobada wararka TV-ga qaranka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in taageerada beesha caalamka ee Soomaaliya ay muhiim u tahay howlqabadka dawladda xilli uu khudbad ka jeedinayay shirka caalamiga ah ee Soomaaliya iyo beesha caalamka oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay. Shirka heerka sare ee Soomaaliya iyo daneeyaasha arrimaha Soomaaliya oo looga hadlay ammaanka iyo horumarka Soomaaliya ayaa maanta la soo gabagabeeyay. Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa shir gudoomiyay kulanka guddiga joogtada ah ee Golaha Shacabka oo looga hadlay howlaha u harsan mudanayaasha Golaha Shacabka inta ka dhiman kalfadhiga. Wararka dibadda ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo idan hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku hanjabay inuu xiriirka diblomaasiyadeed u jarayo Israa'iil haddii Mareykanku uu isku dayo inuu magaalada Qudus u aqoonsado caasimadda Israa'iil. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in taageerada beesha caalamka ay muhiim u tahay howlqabadka dawladda xilli madaxweynaha Jamhuuriyadda uu maanta khudbad ka jeedinayay shirka caalamiga ah ee Soomaaliya iyo beesha caalamka oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayga arrimaha madaxtooyada qaranka Cali Baashi Cabdullaahi Cabdi. shirka caalamiga arrimaha Soomaaliya ee Muqdisho oo u gudbay wajigiisa labaad ee Soomaaliya beesha caalamka oo maanta si wada jir ah dib ugu loogu sameeyay horumarada la gaaray sanadka 2017 iyo waxyaabaha sanadka 2018 muhiimada koowaad leh ee Soomaaliya oo la qodobeeyay ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo furay shirkan waxa khudbad uu jeediyay uu kaga hadlay waxa Soomaaliya u qabsoomay isagoo sharaxay halka Soomaaliya ay higsanayso. The federal government of Somalia is acutely aware that we have a lot of urgent and important work. Dawladda Federaalka Soomaaliya waxay si dhab ah uga warqabtaa inay jiraan waxyaabo badan oo degdeg ah muhiimna ah una baahan in la dhameystiro. Si la mid ah waxaa muhiim ah in saaxiibadeen beesha caalamku ay ka warhayaan waxa dawladda federaalka u qabsoomay muddadii 6 bilood ee aanu soo dhaafnay. dabcan idinkuna aad nagu garab istaagteen. waxaan sameynay hadafyo qorsheysan oo 6 bilood ah taas oo ah inaan baarlamaankeena u gudbinay 15 sharci oo ay 10 qabyo tahay. shuruucdaas waxaa ku jira sharciga isgaarsiinta, sharciga la dagaalanka musuqa, sharciga maamulka lacagta dawladda iyo sharciga la dagaalanka argagixisada. dhammaan waxay aas u yihiin 3 tiir oo dawladnimada muhiim u ah kuwaas oo kala daahfurnaan dhaqaale, ammaanka iyo hoos u dhigidda faqriga. Anti-corruption and economic transparency, security and reduce poverty. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay baahida qorshaha dawladda ee Soomaaliya ee la dagaalanka faqrinimada iyo horumarinta wax soo saarka gudaha. uu sheegay madaxweynuhu inay ka mid tahay ujeedooyinka ay rabto dawladda Soomaaliya inay xaqiijiso waqti aan fogeyn. ganacsatada iyo qurbo joogta Soomaalida ee dalka dib ugu soo laabtay ayuu ku amaanay madaxweynuhu sida ay u muujiyeen in Soomaaliya ay tahay dal adkaysi badan oo raba inuu dib u kabto. isagoo madaxweynuhu mar uu ka hadlayay arrimaha shaqo la'aantana sheegay in dawladda Soomaaliya ay shaqaaleysiisay 5,000 oo dhalinyaro ah, waxaana uu xusay in sanadka soo socda qorshaha dawladdu uu yahay in 20,000 oo dhalinyaro ah shaqo loo helo. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay isla xisaabtanka iyo sida dawladda Soomaaliya uu muhiim ugu yahay. Accountability starts with us. isla xisaabtanku innaga ayuu naga bilowday iyo in dadka Soomaaliyeed ay nala xisaabtamaan. sidoo kale marka laga hadlayo xeerarka dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah, marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda, taas oo aan hormuud u nahay si xal loogu helo halganka ay ugu jiraan dhinaca arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo ammaanka, u hirgelinta si degdeg ah arrimaha aan qodobaynay. waxa ay Soomaaliya u baahan tahay garab istaaga beesha caalamka.
requires the assistance of international community. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii uu socday shirkan looga hadlayay arrimaha Soomaaliya waxa uu madasha shirku ka socday kulamo gooni kula yeeshay madax kala duwan oo ka qayb galaysa shirkaas kuwaas oo ay ka wada hadleen arrimaha Soomaaliya gaar ahaana arrimaha muhiimka ah ee horyaala dawladda Soomaaliya kuna cad qorshaha horumarinta dalka. Ali Baashi Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, garoonka ciidamada cirka ee Muqdisho. dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa kala saxiixday heshiis lagu filinayo mashaariic horumarineed oo ay ku kacayso lacag gaaraysa 300 milyan oo dollar sida faafahinta warkan ay ku eegayso Nasro Bashiir Cali. heshiiskan horumarineed ay maanta kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka 30 sano kadib ayaa waxa ku baxaya in ka badan 300 milyan oo dollarka Mareykanka ah. wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta ayaa dowladda Soomaaliya u saxiixay heshiiskan oo ka kooban dhowr qaybood oo kala ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka, dib u dhiska, shaqo abuurka iyo dawlad wanaagga. waxaana goobjoog ka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo safiir ku-xigeenka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ahna sihayaha safiirka. heshiiskan ay kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa lagu cadeeyay in dawladda Soomaaliya ay leedahay go'aanada sida loo maareynayo mashaariicdan horumarineed si ay ugu salayso baahida ka jirta dalkeena. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa guul weyn ku tilmaamay heshiiskan dawladda Mareykanka uga mahad celiyay taageerada ay la garab taagan tahay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. inay 30 sano kadib dawladda Soomaaliyeed toos ula gasho heshiiskaas waxa ay sheegaysaa sida ay noo garab taagan yihiin waan u mahad celinaynaa. laba waxay sheegaysaa sida dawladda Soomaaliyeed loogu kalsoon yahay iyo meesha dawladda Soomaaliyeed ay soo gaarsiisay shaqada ay dalkan ka hayso. wasiirada halkan fadhiya oo ka soo shaqeeyay gaar ahaan wasaaradda qorsheynta iyo maaliyadda waxaan u soo jeedinayaa mahad ballaaran. dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa haddii aad soo gaarteen in wadano 300 milyan idin la seexdo wadano 200 milyan wadamada kalena ay soo socdaan sidaan habeen dhaweed markaan shacabka Soomaaliyeed la hadlaayay idin sheegay dawladnimada Soomaaliyeed indhihiina ayaa qabta ma hadal waxaanay waa dib u dhiskii ummadda Soomaaliyeed dawladda dunida ugu weyneed ugu muhiimsaneed marka ay tiri waxaan rabnaa inaan idin la qabsano wax oo heshiis toos ah idin la seexano tusaale ka badan oo u baahan tahay mar labaad Marty iyo dadka la socday Julie waa idin mahad celinaya iyo kulligiin dadka safaaradda Mareykanka ka shaqeeya wasiiradeedana waxaan uga mahad celinayaa shaqada wanaagsan ay qabteen. shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay adkaysta kuna fara adeeg dawladdiina yaan la idinka farabaroojinin. waa mahadsantihiin. heshiiskan ay maanta kala saxiixdeen dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ee ay ku baxayso in ka badan 300 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan dowladda Qatar iyo Soomaaliya kala saxiixdeen heshiis ku aadan mashaariic horumarineed oo ay ku baxayso 200 milyan oo dollarka Mareykanka. waxayna guulahaasi ku yimaadeen alla ka sokow dadaalka ay dowladda Soomaaliya ku bixisay horumarinta hanaanka dawlad wanaagga taa oo soo jiidatay ama keentay in dawlado badan oo doonaya Soomaaliya inay garab istaagaan ay ku dhiiradaan xilligan inay heshiisyo kala duwan oo toos ay la sameeyaan dawladda federaalka Soomaaliya. Nasro Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa shir gudoomiyay kulanka guddiga joogtada ee golaha shacabka oo looga hadlay howlaha u harsan mudanayaasha golaha shacabka inta ka dhiman kalfadhiga labaad ee golaha shacabka. kulanka gudiyada joogtada ee golaha shacabka oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxaa looga hadlay qorshayaasha iyo sidoo kale ajandayaasha horyaala golaha inta kalfadhigan ka dhiman. kulanka oo sidoo kale ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa gudoomiyaasha gudiyada iyo gudoonkaba waxay isla meel dhigeen ajandayaasha ugu horeeya ee fadhiyada guud ee golaha inta ka dhiman kalfadhigan. xogayaha guud ee golaha shacabka mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka hadlay kulankan maanta gudida joogtada iyo qodobadii ka soo baxay. hal ajanda ugu muhiimsana ajadaha ugu muhiimsan waxa weeye sidii loo diyaarin lahaa inta ka dhiman kalfadhigan oo ah bisha December shuruucdii iyo hawlihii la qaban lahaa
ayaa la mudaynayay oo la ajandaynayay inta ka dhiman kalfadhigan hadda aan ku jirno oo gabagaba ah kaas oo ay ka mid tahay miisaaniyaddii uu ka mid yahay arrimo aan maaragtay shaqada dhan ee maaragtay 4 sano ee baarlamaankani jiro gudiyadu ka shaqaynayaan baa ka mid ahaa waxaa ka mid ah wixii kale shuruucee yaalla in wixii la dhammaystiri karo muddada la dhammaystiro marka waa la buuxshay wakhtiga dhiman maalin kastoo fadhi jiro waxaa lagu qoray hawshii la qabanayay marka taas ayuunbaa inta ka dhiman lagu dhaqangelinayaa wixii kale raacaa waxa weeye howlo yaryar oo maamul oo la isla raacayo oo la isla garanayo iyo xogo kale oo maaragtay aqoon kororsi ah baarlamaanada kale ku saabsan iyo wixii international treaties ama heshiisyada caalamiga ah ku saabsan oo taasina waxa weeye aqoon kororsi uun bay ahayd laakiin ajandaha ugu weyni wuxuu ahaa maadaama soo xidhmaya kalfadhigani inta dhiman si loo dhammaystiri lahaa waxa la qabanayo la isku sii ogaan lahaa waana la isku afkartay waana la dhameeyey Ibrahim Gudle Isxaaq telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa xariga ka jaray xarun cusub oo lagu tababari doono shaqaalaha rayidka ee wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Xasan Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya dhismahan waa xarun lagu talagalay in lagu tababaro shaqaalaha rayidka ee wasaaradda gaashaandhigga si kor loogu qaado aqoontooda la xiriirta howlaha qaranka ay u hayaan waxaana si wadajir xariga uga jaray xaruntaasi wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo safiirka midowga Yurub u fadhiyo Soomaaliya kadib munaasabad lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho midowga Yurub iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa iska kaashanayay dhismaha iyo qalabeynta xaruntan lagu talagalay tababarada shaqaalaha rayidka ee wasaaradda gaashaandhigga xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo xubin ka ah guddiga difaaca ee golaha shacabka oo ka qayb galay munaasabadaasi ayaa muujiyay in hirgelinta xaruntan ay dabooli doonto baahiyo loo qabo dhinaca tababarada shaqaalaha rayidka ee wasaaradda gaashaandhigga mudane wasiir waad nasiib badan tahay adigoo wax yar magacaaban iyo dhismo noocaana oo wasaaraddii European Union Funds ay kugu kaalmaysay iyo iyadoo aan ognahay in security-ga ama nabadgelyada Soomaaliya la wada danaynayo in dib loo soo celiyo waxaan rajaynaynaa in laga faa'iideysto dhismaha quruxda badan iyo qalabkan safiirka midowga Yurub u fadhiyo Soomaaliya Floresa Loresa oo ka hadashay munaasabadda ayaa sheegtay inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan wasaaradda gaashaandhigga the last 25 years through very difficult times and we intend to continue to be your long-term partner. We have been reliable over these years and we will continue to support in what's a very important agenda of strengthening. mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa ugu mahad celiyay midowga Yurub hirgelinta xaruntan oo si casri ah loo dhisay runtii EU waxyaabaha ay halkan ka qabatay oo wasaaradda gaashaandhigga ay u qabatay waa wax macno weyn ku fadhiya macnana u samayn doona wasaaradda gaashaandhigga qalabka halkan yaala dayactirka lagu sameeyay guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga waxay wax weyn ka tari doonaan ama ay ka qayb qaadan doonaan hawsha u taalla wasaaradda gaashaandhigga khaasatan dhinaca la shaqaynta dadka civilianka ah ama ciidanka iyo civilianka wada shaqadooda dhismahan oo si casri ah loo dhisay ayaa waxay ku taalaa gudaha xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho waxayna noqon doontaa koob tababarada ay ku qaataan howlwadeennada wasaaradda gaashaandhigga iyadoo qaadatay dhismaheeda muddo ku dhow 1 sano waxaana u dhameystiran guud ahaan agabyada lagu talagalay tababarada Maxamed Xasan Cali SNTV magaalada Muqdisho shir looga hadlayo la dagaalanka fikradaha xag jirka ah oo ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin ka socota hay'adaha xeer ilaalinta iyo garsoorka dalalka Afrika ayaa waxa uu ka socdaa wadanka Jamhuuriyadda Djibouti
xeeraalyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo shirkaasi Soomaaliya uga qayb galaya ayaa faahfaahin ka siiyay warbaahinta qaranka shirkaasi iyo maalmaha uu socon doono. kan horta noociisa oo kale waa markii ugu horeysay oo ay dawladda Soomaaliyeed ka soo qayb gasho waa kulan ay isugu imaan jireen wadamada afka Faransiiska ku hadla caalamka xeeraalyaashooda guud isla markaasna ay uga hadli jireen hadba mashaakilaadka iyo waxyaabaha markaa u baahan inay la xalliyo. nasiib wanaag sanadkan waxaa ka qayb galaya dhammaan wadamada geeska Afrika oo lagu martiqaaday oo ay Soomaaliya ka mid tahay, Ethiopia, Kenya, Tanzania iyo wadamada Indian Ocean-ka oo dhan ka soo qayb galeen. runtiina waxay noo ahayd annaga nafsadeenu sharaf iyo runtii inaan ka soo qayb galno mudnaan iyo privilege. horta kulanka ujeedadiisu waxa weeye waa laba qodob. waxa la yiraahdo waxa looga hadlayaa argagixisada iyo sidii loo maxkamadeyn lahaa oo sharciga loo waafajin lahaa. marka argagixiso laga hadlaayana marka dhinacyo badan ayaa laga eegayaa maxaa sababaya waa laga eegayaa dhaqaalaha say ku helaan waa laga eegayaa sidee sharciyada dalalka hadba sideeba sharciyada wadamadu ay u kala habeeyeen waa laga eegayaa. marka dood badan oo ballaaran way runtii wadan walba wuxuu soo bandhigayaa khibradihiisa iyo waxyaabaha uu arko inay laga maarmaanka tahay iyo talaabooyinka ay ka qaadeen xagga sharciga, xagga garsoorka, xagga la dagaalanka militariga, xagga la dagaalanka dhaqaalahooda meelaha uu ka soo galo. waxaas oo dhan ayuu koobayay aad looga hadlayay. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa socdaal shaqo waxa ay ku tageen magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Qatar. Axmed Cabdulqaadir Ismaaciil Darwiish ayaa warkan ka soo diray magaalada Dooxa. wafdiga wasiirka ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilka Soomaaliya u fadhiya ururka waxbarashada ee Jaamacadda Carabta iyo ururka Islaamka Cisaam Xuseen Jaamac, la taliyaha wasiirka waxbarashada Cali Sheekh Axmed, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Xasan Cali, gudoomiyaha jaamacadda ummadda Maxamed Jimcaale, agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda waxbarashada Khadiija Jimcaale iyo xoghaynta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Maria Zakariya Axmed. wafdiga ayaa waxa ay la kulmeen wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Qatar Maxamed Xamaadi iyo madaxda wasaaradda, waxayna ka wada hadleen dardargelinta heshiiskii horey ay labada dal u saxeexdeen sanadii 2015 kaasi oo ku saabsan waxbarashada, tacliinta sare iyo cilmi baarista, iyadoona hadda lagu kordhiyay farsamada. dhinaca kale wafdiga uu hogaaminayay wasiirka waxbarashada ayaa kulan la qaatay agaasimaha guud ee sanduuqa Qatar ee horumarinta Khalifa Jazim Al-Kuwari iyo madaxa hay'adda Qatar Khayriya Yusuf Al-Kawari. sidoo kalena waxay booqasho ku tageen jaamacadda Hamad bin Khalifa. waa kan wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ka waramaya. marka labada kulanba waxay ahaayeen kulan aad u fiican. markii ugu horeysay waxaan tagnay wasaaradda, waxaan wada hadal aad u dheer aan la yeelanay wasiirka waxbarashada kaasoo aan si fiican xogta iskugu dhiibnay Qatar iyo howlaheeda iyo sida ay hore ugu mareen waxbarashadooda. anagana waxaan u sheegnay heerka aan taaganahay iyo dadaalka aan wadnay inaan rabno inaan dalka Soomaaliya aan waxbarashadiisa meel sare geeyno. muhiimadda ugu weyn waxay ahayd safarkeena inaan aan si fiican uga wada hadalno heshiis waxbarasho oo labada dal ay wada saxiixdeen hadda ka hor sidii aan fulintiisii aan uga tashan lahayn. marka taasina si fiican ayaan isula garanay. dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa waxaa ka dhaxeeya xiriir wanaagsan oo soo jireen, waxaana dowladda Qatar ay dardar gelisay mashaariicaha kala duwan ee ay ka fulinayso gudaha dalka Soomaaliya, iyadoona dhawaan uu booqday wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee sanduuqa Qatar ee horumarinta. Axmed Cabdulqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish, warbaahinta qaranka magaalada Dooxa.
shirka heerka sare ee Soomaaliya iyo daneeyaasha arrimaha Soomaaliya oo looga hadlay ammaanka iyo horumarka Soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho sida uu warkan ku faahfaahinayo Cabdishakuur Cali Axmed. shirkan heerka sare ee labada maalin ka socday magaalada Muqdisho waxa uu daba joogay shirkii London waxaana hogaaminaysa dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa goobjoog ka ahaa madaxda ugu sareysa ee qaranka madaxweynayaasha dawlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo dhammaan wakiilada beesha caalamka ee jooga Soomaaliya wajigiisa hore waxa looga hadlay amniga halka wajiga labaad oo maanta ahaa diiradda lagu saaray horumarka ay sanadkan sameysay dawladda Soomaaliya caqabadaha jira iyo geedi socodka doorashada 2020 waxaana furay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shirka ku soo bandhigay wixii u qabsoomay dawladda sanadkan waxaana hadallo ku saabsanaa iyana wixii ay qabteen iyo caqabadaha haysta soo jeediyay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa Muqdisho safiirada caalamka ee joogay shirka waxa ay dhiirigeliyeen qabashada shirkan iyo tilaabooyinka ay sanadkan qaaday dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xiritaanka shirka waxa uu sheegay in Soomaaliya ay doonayso inay ka baxdo ku tiirsanaanta kaalmada caalamka wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariiso ayaa waxa uu warbaahinta la wadaagay wixii ka soo baxay shirka kulankan ayaa waxa diiradda lagu saarayay arrimaha ay ka mid yihiin horumarka siyaasadda laga gaaray Soomaaliya gargaarka bini'aadanimo iyo sida looga hortagi karo in muxuu ahaa waddanka oo macluul ay ka dhalato sidoo kale dib u kabashada dhaqaalaha sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha waxa kaloo laga hadlay Soomaaliyada cusub iyo iskaashiga looga baahan yahay iyo dib u jaleecid lagu sameeyay shirkii amniga ee shalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa ugu horeyn caalamka iyo Soomaalidu la wadaagay higsiga Soomaaliya ay higsanayso in doorasho ka dhacdo 2020-2021 intaas kadib ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xasan Cali Khayre ayaa isna shir gudoomiyay qaybtii dambe ee shirka oo wasiirada warbixinta laga dhageystay waxa kale warbixin laga dhageystay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir dhammaanna waxay ku saabsanaayeen arrimahan aan ka soo dhawaajinay oo ahaa horumarka siyaasadda laga gaaray ujeedadana waxay ahayd shirkii London wixii ka dambeeyay sidii loo dhaqan gelin lahaa waxyaalihii lagu heshiiyey oo dhankii amnigana shalow ahaa maantana dhankii horumarka dhaqaalaha iyo siyaasadda intaas ayuu shirku ku saabsanaa waxa laga soo saaray warmurtiyeed aad u dheer oo hadda halkan lagu wada aqrin karin 48 ka kooban wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keaton waxa uu warbaahinta qaranka u sheegay shirka kadib in Soomaaliya ay ka go'an tahay inay hor u socoto waxaan u malaynayaa inuu muujiyay go'aanka dawladda Soomaaliya ee inay la shaqeeyaan dhammaan Soomaalida haddii ay ahaan lahayd dawlad goboleedyada baarlamaanka bulshada rayidka ah in la gaaro qorshaha degsan ee ah ammaanka horumarinta dhaqaalaha shaqo abuurka sidoo kale dhammaynta waxa ka dhiman nidaamka federaalka dib u eegista dastuurka wadiiqada doorashada iyo wixii la mid ah si la mid ahna beesha caalamka waxay ballan qaadeen inay taageeraan sidii loo sameyn lahaa dawladda Ingiriiska oo horay u qabatay shirweynihii London ee kan ka horeeyay safiirkeeda Soomaaliya David Conker waxa uu tilmaamay in sanadkan la sameeyay qorshe loona baahan yahay in sanadka 2018 qorshaha la sameeyay loo bedelo mid ficil ah waxaana uu dhiirigeliyay hamiga hoggaanka qaranka ee ah in Soomaaliya ay ka baxdo ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye sanadka 2017 waxa uu ahaa sanad weyn oo la sameeyay qorshe caqabadaha ha jiraane waxaan rajaynaynaa in sanadka 2018 qorshaha la sameeyay ficil loo bedelo lana bilaabo wax ka duwan oo bulshadu ay dareemaan nabad ka wanaagsan midda la haysto iyo horumar dhaqaale fariinta muhiimka ah waxay tahay hadalka ra'iisul wasaaraha ee xiritaanka shirka ee ahaa in Soomaaliya aanay doonaynin inay ku tiirsanaato kaalmo ay bixiyaan caalamka xaqiiqdii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba way hami wanaagsan yihiin sida ay noola wadaageen haddii aan nahay saaxiibada waana muhiim in Soomaaliya ay wado inay hormariso dhaqaalaheeda iyo inay kor u qaaddo
ilaheeda dhaqaale. cabdishakuur cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta waxay shaacisay isku aadka kooxaha ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolkan Banaadir oo toddobaadka soo socda ka furmi doona magaalada Muqdisho. sida warkan ku faahfaahinayo Muuse Cismaan Abtow. kulankan oo lagu soo bandhigayay isku aadka qorituurka jadwalka tartanka kooxaha ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaasi ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, wasiiro, xildhibaanada labada aqal, ciyaartoyda gobolada dalka iyo gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale. waxaa inta uu socday kulanka goobta lagu soo bandhigay qaabka jadwalka iyo isku aadka kooxaha ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo dhawaan ka bilaaban doono gobolkan Banaadir. maanta waxaan isugu nimay qorituurkii iyo isku aadkii kooxaha dowlad goboleedyada iyo wareejintii qalabka maadaama barnaamijkan uu berri iyo wixii ka dambeeyay diyaar garowgiisu ahaa wuxuu barnaamij aad u qiimo badan aad baan ugu qanacsanay sida wax u dhaceen. wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diire ayaa ka warbixisay sida ciyaaraha ay ugu bilaabanayaan gobolka Banaadir. jadwalka ciyaaraha 7 bisha furmaaya oo u dhacaya sidan hortayda taala oo aad kulligiin ka wada helaysaan koobiyaasha. 7 waa maalinta furitaanka waxaana la marayaa wareeg isfeelmeento oo ah dhammaan tartamayaasha ay wada marayaan gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada. waxaana dhacaya ay ciyaarayaan 2 koox oo la kala yiraahdo Himilo iyo Dirir. waana ciyaartoyda under 16 ama dhalinyarada. maalinta furitaanka waa maalintaas. jimcaha ayaa tartanka isku aadka sida hadda aad hortiina ka dhacday ayayna bilaabanaysaa. waxayna soconaysaa ilaa 22ka oo ku cad jadwalkan qaabka uu noqonayo oo hadeer la idin la wadaagayo. gabagabadii kulanka ayaa waxaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ku wareejisay qalab isboorti wakiilada ka kala socday ciyaartoyda gobolada dalka. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa xukuno isugu jira dil iyo xabsiyo sanado kala duwan ah waxay ku riday 4 qof oo lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen qarxayo dad shacab ah oo aan waxba galabsan lagu laayay oo ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii ay maxkamaddu sheegtay in ay ku cadaadeen dadkaasi dambiyadii lagu soo eedeeyay. dacwadda loo haysto 4 eedeysane oo la xiriirinayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-Shabaab gaar ahaan qarxayo ka dhacay 3 maqaaxi oo ku yaala wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida go'aan ka gaartay dacwadahooda iyo eedaha loo haysto. dacwadaha 40 qof oo xafiiska xiraalinta guud ee ciidamada qalabka sida ku soo oogay ayaa soo maray heerar kala duwan waxaana dacwadahooda ay soo mareen ilaa 3 dhageysi maxkamadeed oo intoodu baaha kuwa furan oo dadweynuhu ay si furan uga soo qayb gali karaan. sidoo kale eedeysanayaasha waxa uu doodayay abuukaatayaal ama qareeno si aysan u dhicin doodsi cadaaladeed eedeysanayaashuna ay u helaan hufnaan cadaaladeed oo ay ku qanci karaan. xafiiska xiraalinta guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda hor keenay cadeymo isugu jira qoraalo iyo muuqaalo oo xafiiska xiraalintu u cuskaday inay cadeymo yihiin eedaha raggan loo haysto. 4 eedeysane ee ay maxkamadda ku riday xukunada kala duwan ayaa kala ah Cabdulqaadir Abuukar Shaacir, Maxamed Cumar Akiila, Daawud Maxamed Cali iyo Cabdullaahi Ibraahim Geesi. waxaana eedeysanaha koowaad ee Cabdulqaadir Abuukar Shaacir oo ah qofka kaliya ee dilka toogashada lagu xukumay ay maxkamadda si gaar ah ugu eedeysay inuu ahaa shakhsiga sida tooska uga dambeeyay qaraxyo dad shacab oo aan waxba galabsan lagu laayay oo ka dhacay 3 maqaaxi oo ku taala wadada Maka al-Mukarrama. waxay sidoo kale maxkamaddu sheegtay in Cabdulqaadir uu ahaa shakhsiga ka soo muuqday muuqaalo ay duubeen kaamirooyinka qarsoon ee laamaha amniga isagoo ka soo degaya mid ka mid ah gabaaridii qaraxyada lagu geystay gaar ahaan
gaarigii ku qarxay kasoo horjeedka wasaaradda amniga. Korneel Xasan Cali Nuur Shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa si rasmi ugu dhawaaqay go'aanka maxkamadda ee la xiriira eedaha 4 eedeysane loo haysto, isagoo sidoo kale sheegay in haddii aysan go'aanka maxkamadda ku qanacsanayn ay eedeysanayaashan raacfaan ka qaadan karaan. maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dambiile Cabduqaadir Abuukar Shaacir uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. labo Maxamed Cumar Akiile waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. saddex Daa'uud Maxamed Cali maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano oo xabsi ciidan ah. afar Cabdulaahi Ibraahim Geesey waxay maxkamaddu ku xukuntay 2 sano oo xabsi ciidan ah. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. wabillahi tawfiiq. Ibraahim Gudle Isxaaq, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. dekada weyn ee magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray haraadiga maraakiib hore ugu qoosay, iyadoo arrintaasina faahfaahin ay ka bixisay shirkadda Albeerag ee maamusha dekada. sida uu warkan ku faahfaahinayo Muxidiin Macalin Cabdulle. shirkadda Albeerag ee maamusha dekada weyn ee magaalada Muqdisho oo ka duuleysa sare u qaadista dayactirka iyo nadiifinta dekada weyn ee magaalada Muqdisho ayaa fulisay howl lagu hagaajinayo goobta ay ku soo xirtaan maraakiibta oo laga soo saaray qalab ka haray maraakiib hore ugu qoosay dekada si loo fududeeyo hanaanka shaqo ee dekada magaalada Muqdisho. waxaa muuqanaya howlwadeennada shirkadda Albeerag oo ku howlan soo saarista haraadiga maraakiibta ku qoosay dekada iyagoo adeegsanaya qalab casri ah oo loogu talagalay nadiifinta dekada, waxaana ay ku guuleysteen in hawsha oo bilaaw ah ay dibadda u soo saaraan qashin badan oo caqabad ku ah habsami u socodka hawsha socota iyo soo xirashada maraakiibta kala duwan ee dekada ku soo xiranaysa. Maxamed Sheekh oo ah waqaabilsanaha dhinaca warbaahinta ee shirkadda Albeerag ee maamusha dekada Muqdisho ayaa tilmaamay in arrintan loogu talagalay qurxinta hawsha muhiimka ah ee ka socota dekada Muqdisho. saad ogtiin dekada wax badan ayaa waxa ka jirta dhibaatooyin fara badan. dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah in ku soo xirashada maraakiibta mararka qaarkood ay ka iman jirtay dhibaato, taasoo ay u wacan tahay in ay badda gudaheeda ay ku jiraan maraakiib ku quustay waa hore. shirkadda Albeerag ayaa hadda waxay bilowday in maraakiibtaas badda hoosteeda ku jirta ay soo jarjarto gudaha iyagoo ku jira hoosta ay ka soo jarjarto, kadibna ay ka soo bixiso bannaanka loo soo saaro si ay u suurto gasho ama dekadda ay ugu suuro gasho in ay howlaheedii ay u socdaan si habsami leh, maraakiibtana ay ku soo xirtaan xajmigii la doono hala ekaadaan. marka shirkadda Albeerag waxay ku dadaalaysaa horumarinta dekadda iyo sidii ku noqon lahayd dekadani dekada caalami ah oo isku xirta dekadaha kale ee gobolka ku yaala. shirkadda Albeerag oo mas'uul ka ah maamulka dekada Muqdisho qorshaysay tallaabooyin badan oo ay ku doonayso inay ku horumariso shaqada ka socota dekada, sida uu mar kale sheegay Maxamed Sheekh waqaabilsanaha dhanka warbaahinta ee shirkadaasi. waxaa kaloo intaasi dheer in la keenay qalabkii lagu nadiifin lahaa dekada, iyadoo carrada dekada ka soo buuxsantay gudaheeda badda hoosteeda laga soo qofi doono. marka qalabkan ugu yaala wuxuu ku jira konteynaro khubaro ayaa waxay ka iman doonaa Turkiga, waa la isku xiri doonaa, iyagana hawshooda waa la bilaabi doonaa si marka maraakiibta yacni waaweyn ay ugu suurto gasho inay ku xirtaan ay dekada ay ku soo xirtaan. Muxidiin Macalin Cabdulle, TV, Muqdisho. tartan orod ah ayaa loo qabtay dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada ah ee ku nool gobolada dhexe ee dalka qaarkood, taasoo ka mid ah ololaha lagu dhiirigelinayo dadka naafada ah ee ku nool gobolada dalka. Deeqa Abuukar Jiinow ayaa warkani ka soo dirtay. tartankan baaskiilada ayaa dhex maray Cabdi Mahad Maxamed Cabdikariin iyo Cabdirasaaq Maxamed oo u kala tartamayay degmooyinka Cadaadii Gaalkacyo, waxayna ku tartamayeen Ugandhan 100 mitir. mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa goobjoog ka ahaa halka ay naafadu ku soo bandhigayeen tartankooda. ujeedka tartanka ayaa ahaa sidii dhalinyarada naafada ah ee ku nool gobolada dhexe loo dhiirigelin lahaa si loogu abuuro xirfado. Faisal Muuse Xasan waa wakiilka Disabled ee naafada ee dowlad goboleedka Galmudug, waxa uu na sheegay in ujeedkoodu yahay sidii guryaha looga soo saari lahaa dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba isla markaana loogu abuuri lahaa shaqooyin. tartankan waxaan anagu hadda aan ugu talagalay ujeedkeenu waxa uu yahay sidii aan dhalinyarada naafada oo guryaha ku jirta
aan uga soo saari lahayn guryaha xifradna aan ugu samayn lahayn uguna shaqo tegi lahaayeen xifradahaas sanad kasta waxaa dhaca wasaaradda cayaaraha Soomaaliya waxay wadaa ciyaartooy naafa oo ciyaaraha internationalka ka qayb gasha maadaama aan nahay dhalinyarada reer galmudug ee Soomaaliyeed waxaan jeclaysanay inaan soo muujino dhalinyaradeenna naafada annagoo u shaqeyna haddana ururka ayda disable oo urur taakuleeya naafada kana dhisan wadanka UK inaan naafada cadaado aan mashaariic u suubin doono mashaariicdaas oo kale ah kuwa xifradaha gacanta iyo sheegeen kuwa kale oo dhiirigelin aan samayn doono gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole oo dhankiisa goobjoog ka ahaa ayaa ku tilmaamay tartankan baaskiilada ee naafada loo qabtay inuu yahay mid muhiim ah balse loo baahan yahay in shaqooyin dawladda laga qayb geliyo tartankani waa tartan muhiim ah waxaan ognahay in shalay ay ahayd maalintii loo asteeyay maalinta la xasuusanayo naafada adduunka waxayna muhiim ahayd markaas in dadkan mar hore waxay ahayd la baro oo tartamada noocaana la baro oo dadka la dhiirigeliyo waxaan leeyahay ku tala bixinayaa kuma filna dadka naafada maalin inta la yimaado in la qabto xaflad la qabto ee la yiraahdo maalintii naafada kuma filna waxaan leeyahay dawladaha hadday tahay hadday shirkadaha ganacsiga tahay hadday cid kasta tahay horta qolo walba xeerkeeda ha ku darto in naafadu ay qayb ka leedahay shaqaalaheeda tartankan baaskiilada ee lagu qabtay bartamaha magaalada Cadaado maanta ee laamiga Argada waxa guusha ay ku raacday Cabdimahad Maxamed Cabdikariin oo degmada Gaalkacyo u tartamayay iyadoona tartankan uu yahay mid sanadkiiba lagu qabto Galmudug kaasoo ay iska kaashanayaan hay'adda Disable ee u ololeysa naafada iyo ururka naafada gobolada dhexe deeqaw Garjino warbaahinta qaranka Soomaaliyeed halka daawadayaal warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho madaxweynaha dawladda Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ku hanjabay inuu xiriirka diblomaasiyadeed u jarayo Israa'iil haddii Mareykanku isku dayo inuu magaalada Qudus u aqoonsado caasimadda Israa'iil Erdogan oo si kulul uga hadlayay damaca Israa'iil ay ku boobayso dhulka Falastiin ayaa xusay in tallaabada Mareykanku Qudus ugu aqoonsanayo inay tahay mid muslimiinta caalamka oo dhan ay ka soo horjeedaan Qudus oo ku yaala masjidka barakeysan Al-Aqsa ayaa ah xudunta dhulka Falastiin waxaan madaxweynaha Mareykanku sheegay inuu u soo rarayo safaaradda ay ku leeyihiin Tel Aviv marka ay caasimadda Israa'iil ay u tixgeliyaan madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo maanta oo Talaada ka hadlayay xaaladda Qudus ayaa xoojiyay dadaalka ay hogaamiyaal badan ugu jiraan in la baajiyo damaca Mareykanka iyo Israa'iil ay ugu jiraan inay qaataan magaalada Qudus Mareykanka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa u sheegay Trump isagoo telefoon u diraya in tallaabada uu qorsheynayo ay abuuri karto xasilooni darro weyn isla markaana ay dhaawacayso wada xaajoodka nabadeed ee Israa'iil iyo Falastiin jaamacadda Carabtu waxay qabatay kulan degdeg ah ay markaasi ka yeelanayaan xaaladda soo cusboonaatay ee magaalada Qudus afayeenka aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in indisahan uu yahay mid sanado badan taagnaa balse ay mar walba dib u dhigayeen culaysyada siyaasadeed hase ahaatee Trump ayaa hadda doonaya inuu fuliyo daawadayaal warkii oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho inta warkankiisa kale aynu ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh